waxyaalaha maandooriyaha horta waa wax dadka badanaa maskaxdiisa waa bedelaba dhalinyarada badanaa waxay kala kulmaan dhibaatooyin badan. Dadka qaar markii ay cunaan miirkoodii ayaa tagayo, waa balwad haddana ay barteen oo iskama dayn karaan, waa in ay mar walba ku celiyaan. halkaas marka waxaa u imaanaya dhibaatooyin badan. Waxaa laga yaabaa asagoo bahasha cabsan miirkiisa uusan joogin, qof intay isku dhacaan markaas uu toori geliyo, asaga mustaqbalkiisa saas ku tago, ama asaga inta la geliyo uu saas ku dhinto. Marka maandooriyaasha wax ma ahan u fiican dhalinyarada waxa ay u keenaan maskaxdiisa inuu qofka doorsanto oo maskaxdiisa uu ka shaqaysiin waayo. waxay u keenaan dhibaatooyin fara badan oo kamid ah waqtigiisa in uu lumo qofka asaga ah oo uu ka faa'iideysan waayo waa waqti uu sarqaansan yahay asaga oo maskaxdiisa ay maqan tahay, iyo waqti uu maskaxdiisa ay joogto laakiin marka ayada uu isticmaalaya shayga asaga ah. Marka ma ahan wax u fiican dhalinyarada gabi ahaanba maandooriyaha iyo waxyaalahaas. waxaana wanaagsan in laga hortago oo laga wacyigeliyo dhalinyarada oona laga hor istaagay inay isticmaalaan waxyaalahaas. بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waa Deeqa Cabdisalaan. anoo magacayga ku bilaabaya dhalinyarta Soomaaliyeed waxaa u keenay dhibaatada daroogada iyo xashiishka iyo daraagiska dhan oo ay cabayaan. waxaa u keenay dadku waxay fakar ka aaminsan yihiin in lagu cayilasiiba gabdhaha u darnaadaan, taasna fikradooda ma ahan in lagu cayilayo. saameyn weyn ayagu u geysanaysa xataa ma ay ogsoono, laakiin aniga xagga fikir ahaantayda haddaan fiiriyo saameyn weyn ay ku leedahay. waayo qofka bini'aadamka sanbabadiisa iyo wadnihiisa iyo kaliyaashiisa waxyaalihiisa dhan waxay u geysanaysaa dhibaato weyn u geysanaysaa, taas oo ay ayaguna u moodaan inaysan dhibaato u geysanayn ay daroogada u tahay wax ayaga ay ku cayilayaan. xashiishada waxay dhahaan iyo tan buudida waxay dhahaanba laguma cayilaan. fikradeeda taasaan ka dhiibanaya. marka waxaan ku wacyigelinayaa walaalaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka hortagi karaan daroogada iyo xashiishada iyo buudidan. aniga xataa hameen dhexdaas waan arkay ummad baa igu agcabtay, laakiinse waan saaqmay wax yar ka bacdi markaan arkay, laakiinse tii alla isku celiyo. laakiinse waxaan dhihi lahaa